dawadayaal kulanti wacan meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku soo qaadanayno booqashadii uu madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiin ka socday dawladda federaalka oo sarsare ay ku soo indheeyeen dhibaatadii ay geysteen daadadkii ka dhashay fatahaadii webiga Shabeelle oo dhibaatooyin dhimasho iyo baabi'in hantiba u geystay bulshada ku dhaqan degmooyinka Qallaafo Mustaxiil iyo Feerfeer ee gobolka Goday. Dawadayaal daadadkan ayaa waxay dhimasho u geysteen dad tiradoodu dhan tahay 18 qof waxa ay kale waxyeelo weyn u geysteen 22 tuulo oo degmooyinkaasi ka tirsan. booqashadani ay haddaba daawadayaal ay ku soo kala bixiyeen ee uu horkacayay wafdigani madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Daawud Maxamed Cali iyo wasiiru dawlaha wasaaradda beeraha iyo horumarinta reer miyiga ayaa waxa ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Daawud Maxamed Cali isagoo arintaasi ka hadlayana wuxuu ku bilaabay sidan. waxaan socdaal ku maray Mustaxiil iyo Qallaafo magaalada gudaheeda hadda ay joogaan keedada maanta waxay webi Shabeelle oo fatahay 3 sano oo abaar kadib marka abaar markii ay sanado fara badan ay dhacdo isla markaa webigu fatahay wax caadi ah hor iska jiray marka waxyaabahan soo aragnay runtii sida markii loo buunbuuniyay ma oo way dhantaa laakiin hase yeeshee dad dhibaato ay gaadhay ma jirto lama dhihi karo hadda Mustaxiil baan soo marnay Mustaxiil ilaa 45 qof iyo webigu ama daadadku ay waxyeeleeyeen dad badan oo matoorradoodu webigu la tagay baa jira dad tiro 6 ah yaa ku dhintay dadkaas beereed fara badanna webiga dhibaato ayuu geystay dad kooban oo xaas masiiro dhaawacayna way jiraan marka inahaas yar dhibaatooyinkaas yar baa ayaa jira waan aragnay Qallaafo kale markaan fiirino dad 36,800 meelahaas gaari daadadku waxay leeyihiin guryo fara badan oo la tagay way jiraan laakiin 12 qabale oo miyi ka mid ah iyaguna daadadkii waxyeelo way gaarsiiyeen Mustaxiil laakiin la qoy qaatan qabale baa marka dhibaatooyinkaas ku daadadku dadka u geystay tirada dadka ku nool aagaas aad buu u badan yahay iyo tirada waxay leeyahay dadka waxyeelooyinka loo fiiriyo laakiin way sheekoyin si kastaba ahaatee dadkaas gurmad bay u baahan yihiin waana aragnay ilaa hadda waxyaabaha loo qabtay dadka ama u soo socda markaa wax ka tartaan raashinkii ilaa hadda wuxuu soo marayaa Guinea buu joogay hadda waxaa laga yaabaa inuu soo gaaro
hal beri ka bacdeen ilaa shalay laba beri bay ahayd laakiin maanta ilaa beri inuu yimaado ayaa raashinkii dowladda federaalka soo gashay baa markiiba soo fidara dadku waxyaabaha kale u baahan waxaa ka mid maacuntii iyo guryihii ay dhisan lahaayeen bacyihii ay u baahnaayeen intaasna goday iyo jijiga bakhaarada wixii yaallo dhan annagoo dowladda federaalka iyo hay-adaha la kaashanaya dadka in si degdeg loo gaarsiiyo ayaan ku dadaalay waxyaabaha dadka kale dadkii markaan shirinay ay noo sheegeen ama dhismeedkeena dawliga iyo markaan shirinay ay noo sheegeen baahida degdega hadda loo baahan yahay waxaa weeye webigu dhibkiisa ha lahaado laakiin dhan kale marka la fiiriyo fatahaddu munaafacaad bay leedahay dadku noo soo jeedin waxaa ka mid a inay u baahan abuurka kale iyo waxyaabihii beeraha lagu qaban lahaa marka intaasna si degdega in dadka lasoo gaarsiiyo ayaan ku dadaalaynaa hadday noo suurta gasho inay diyaaradahan waaweyn raashinkii iyo abuurka qaado haddii ay noo suurta gasho inaan dowladda federaalka ka helo weli wada hadal baan hadda bilaabana taa hadday noo suurta gasho si fudud baan u gaarsiiyey taa hadday noo suurtageli weydo maadaama hadda waddooyinka ay furmeen webigiina hoos u dhacay inaan adeegsano gaadiidka unbay noqonaysaa dadaallo ilaa hadda la sameeyey inkastoo ay aaday u liidato laakiin waxyaabaha markaan la shiraynay degmada iyo gobolka mas-uuliyiinta degmooyinka iyo gobolka markaan la shiraynay xilli xun bay la soo kulmeen oo qaab dhismeedkeena dib loogu noqonayo oo qiimeyn ay ku jiraan taasaa keentay hawshan inaan la dardargelinin waxyaabahan u nimidna hawlahan kale in la dardargeliyey ayay ahayd marka markaan iyaga la shirnay waxyaabaha qorshe ahaan ay u qaateen waxaa ka mid ah degmooyinka mas-uuliyiintu iyo shaqaalahooda marka hore mushaarkooda inay iska jiraan howlfulintooda ay iska jiraan mashaariicaha sanadka aan la fulin karaynin ama xiriirka la leh daadadka in kuwaas inta la iska daayo loo adeegsada si dadkan barakacay wax lagu qaban lahaa inay u adeegsadaan daawooyin la xiriira maadaama fatahadda ay dadku ay saameeyeen oo mas'uulihii iyo wixii oo dhan mustaxiil oo dhan hadda ilaa halkaas ayuu joogaa ilaa iyo meesha sunku kuu gaayo ayuu joogaa marka mas'uulihii iyo waxaas ku furmay daadadkii marka dadku waxaa ku dhacay shuban biyo ay sheeganayeen waxyaaba ku dhacay abaar dheer markay jirto fatahadu waad filanaysaa oo iyagu way garanayaan iyaga marka waxay soo jeediyeen tan inaan ku jirna ma ahe waa in meel kale sumooyin ku fatahin waa in la dejiyo ay soo jeedinayaan dadku run ahaantii wasiiru dowlaha dowladda federaalka ee xafiiska beerahan uu ka jawaabay saddex xilli bay u kala qaybiyey sidii uu sheegahay xilliga gaaban waxyaabahan qabanayna wataan hadda anigu ku warramay xilliga dhexe iyo xilliga dheer in dadkii meel la dejiyo dadkuna way soo jeediyeen dadku wax walba inay garanayaan saas ayaad ku garanaysaa dhibaatadooda way garanayaan waxay u baahan yihiinna way garanayaan ee waxaa la waayey dowlad u shaqaysaa la waayey dadka ama heer degmo ahaato ama heer marka in daraasad la samayn doono oo mustaqbalka meel wanaagsan oo webigu isu tahay in la dejiyo qorshaha dheer iyo ugu jirtaa ugu dambeyntii maxaa markaa dadkan ay biyuhu waxyeeleeyeen iyo shacabka kale ee ganacsatada iyo deegaanka wiilkooda ku nool maxaa fariinada ugu soo jeedinaya way dadka dhibaatadu ay gaadhay waxaan u soo jeedinayaa in dowladdu ay gurmad u samayn doonto dadka ganacsatadaana waxaan u soo jeedinayaa in maaragtay ay caawiyaan ama taakuleeyaan dadkan barakacay waxay dowladdu hayso keliya waxaa weeye kuma filna dadku aad u fara badan yihiin marka in lays caawiyana meesha waa ay ku jirtaa marka ganacsatada ku nool gobolka goy iyo deegaanka waxaan u soo jeedinayaa inay wax allaala wixii dadkaa barakacay u baahan yihiin inay la yimaadaan la soo jeedinaya maamuladana waxaan u soo jeedinayaa in dadka fatahaddu waxyeelayaan raashinka loo keeni doono ama daawooyinka loo keeni doono ama wax walba oo maacuunta loo keeni doono daawadayaal waxaa kaloo iyaguna u warramay wafdigani uu hogaaminayo madaxweynaha dadweynihii ku dhaqnaa degmooyinkaasi qallaafo iyo mustaxiile ay soo indheendheeyeen wafdigaasi iyagoo ka hadlayana dhibaatada ay daadashaasi u geysteen bulshada xoolo dhaqatada beeralayda ah waxay ku bilaabeen sidan ilaahay baan ku mahadinaynaa mahadina laakiin imaashaha aad noo timid adiga ood aragtay mustaxiil dhibaatada inaad la wadaagto darteed